dugsiyada al irshaad schools dhammaan ardayda media igala socota iyo waalidka waxaan leeyahay ku soo dhawaada maadada afka Soomaaliga iyo macallin Axmed Soomaali iyo fasalkii 7aad oo idin bilaabayo way maanta waa 20kii bishii waa Bariis 1440 oo laabin ah kuna beegan 13 Abriil 2020 oo maalin Isniina waxaan iyaduna cudurkii saddexaad aynu maraynay waxa inoo dhamaaday gabaygii abaaldhac maanta waxaanu qaadan doonaa sharaxa ereyadiisa oo ka bilaabmaya 114 ilaa iyo 116 way waxaanu soo aragnay ereyada leg hore ma maqasheen leg in badan buu af Soomaaliga ku soo noqdaa erey fara badan oo leg la macnaaba jira waa sakaarka shafka laabta inta lamida ladaadiyo laqayo marka la cuno cunto ay duxdu ku badan tahay ayaa la dareemaa wax loo yaqaano ladaadiyo waa dareen laqaya ah libdhac waa abaaldhac abaalka dar lahanlo balanbal lur wanagi hore soo sheegnay waa erey ka yimid luqadda afka Carabiga oo afsoo Carabi wax noqonaysa dur oo daadka waxaynu ku bedelnaa laam af Soomaaligu waxa kamid ah arlo wada nimca muu khalqigu ku istareexay wani ku soo dhiganay fasalkii 6aad lur marka waa maxay waa dhibaato ama waa dur lulato waa hilib kal laxiiba kal markay noqoto waxa weeyaan waxa la mid tahay lig waxa loo jeedaa kal laabto dhan loo wada jeeday qalbiga ama wadnaha ayaa loo jeedaa wadno laxiiba qalbi dabacsan oo naxariis badan qof naxariis badan baan haybu jeedaa kal laxiiba laabta xuushada maxaa loo soo qaatay xuushadu waa xayawaanka ugu beerka jecel ubadkeeda ugu jecel sida xuusho dhasheeda looga qaataa waa iyadoo dhimato way laxawsi kalgacal xudxudashu kalgacal ama jacayl ayaa la yiraahdaa laxawsi maanta halkaas ayuu lagu dhamaaday casharkii ereyadii adkaa waxa inoo bilaabmaya waa laylis idinkana waxa idinna arday dhamaantiin isku tijaabiya inaad isku beegtaan sagaalka erey iyo sagaalka macne ee ka soo horjeeda qaybta ba iyo qaybta ta anida akhriyo hilib lulmaya qaanuun laab lawi calaacal libgad ladaadiyo lohanlo xag kale maxaa yaala cadaalad qabiil ruxmaya balanbal digaag laqayo abaaldhac murugo kal hadii la hayraa maanta noo dambe hadii la hayraa iyo idinkoo si fiican uga shaqeeya dibna aynu saxno waalidkana waxaan leeyahay hadii la hayraa ku gaargareeya ardayda oo la socda qaabka ay uga shaqeyn doonaan hadii la hayraa ana hadii la hayraa biidnillaah maalmaha dambe hadii la hayraa ayaynu is eegi doonaa sida ay iskugu sax yihiin وإنه حسدا حكتا بالله توفيق وحنا كنت عيني دي لهيدا إن الله أفدا إن كرك حيصي إلهي نجس مريو بالله توفيق dugsiyada al irshaad schools